Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow Success Academy. Fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe saar una share gari asxaabtaas si ay uga faa'iidaystaan. Casharkeena wuxuu ku saabsan yahay dhowr qodob ee ku saabsan Excelka. Waxaan rabnaa inaan diyaarino xog ardayeed ee imtixaan ah sida maadooyinka marka la isku dardaro, tirada guud oo loo yaqaano totalka isku darka, average celceliska ardayga uu keeno, maximum oo ah maadada ugu badan ardaygaas intuu keenay, iyo minimum maadada ugu yar intuu keenay, iyo county intii maado u galay. Marka ugu horeysa waxaan soo kacsanayaa Excelkayga anigoo isticmaalayo Unuki plus R, kadibna ku qoraysid meeshaas Excel. Waxaan isticmaalaynaa Office-ka ama Microsoft 2021. Waxaan soo kacsanayaa marka Blank Workbook. Waxaan sameysanayaa marka qaybtan ugu horeysa sida caadada inoo ahayd. Waxaan ka dhiganayaa Media Center, kadibna waxaan ku qoranayaa magaca akademiyada, kadibna waxaan ku dhufanayaa meel bannaan oon laabanayaa oo waxaan weyneysanayaa marka farta halkaa igu jirta, kadibna waxaan ku shubanayaa color ay kalka ka yeeshaad ku shuban kartaa. Fartana waad iska bedeli kartaa oo fartaad rabta ayaad dooran kartaa. qaybta ugu horeysa waxaan ka bilaabayaa oo ciwaan aan ugu dhigaa number wax la yiraahdo, kadibna waxaan leeyahay ardayga full name, tab ayaa leedahay si aad geeska kale aad ugu boodo. Waxaan ku xijinayaa marka maadada uu galay, sida maadada Soomaaliya ka bilaabayna biology, xisaab, chemistry, English, physics, Arabic, history, geography, kadibna waxaan ku xijinayaa markaasi. Hadana wax ku xijin marka waxaan sameysanayaa halkaa ayaan double click ku leeyahay, magaca ilaa intaa ugu deeqaa. Sidoo kale halkaa numberka, Somali, biology, chemistry xogaa cariiriga ka jira halkaa double click ku sii. Geography sidoo kale halkan waxaan ku qoranayaa marka total. Waxaan ku xijinayaa average, waxaan ku xijinayaa max wax la yiraahdo ah maximum maadada inta ugu badan, iyo min oo ah minimum, iyo county oo ah maadada ugu yar. Kadib waxaan imaanayaa halkaani shift control iyo arrow ayaad isla qabanaysaa, kadibna waxaan ku select gareysmayaa wax meesha kugu qoran. Waxaan sameynayaa horta qoraalka in iska bedelayaa farta ku qoran yahay. 2 waxaan ka dhiganayaa poly, kana sidoo kale isagana poly iga dhig si loo dareemo oo loo fahmo. Weli waxaan sameynayaa marka ilaa halkan ayaan jiidanayaa. Okay. Xogaha maadooyinka ee wax iskaga soo galeen hoosta kala bixinaynaa. Halkan waxaan ku qorayaa number 1, kadib haddaa rabto nambarada badsan kartaa halkaa ku dhufo. Fill series isticmaal ilaa iyo waxaan geysanayaa marka 5 arday, labadan iska tirtirayaa. Magaca ugu horeeya ka bilaabayo waa ninka Maxamed Cabdikaadir la yiraahdo. Waxaan rabaa inaan sameeyo waxa loo yaqaano sum. Waxaan rabaa marka inaan sameeyo waxa loo yaqaano sum ama total oo isku darka ah. Totalku waxaa ku soo saaran kartaa marka dhowr formula ama dhowr qaacido. Waxaan sheegayaa aniga marka 2 qaacido oo ah kuwooda ugu fudud. Aan ka dhigo xitaa sida marka koowaad waxaad tagaysaa godka totalka ah. Waxaad ku dhufanaysaa halkaasi ay ku qoran tahay auto-sum. Auto-sum markaad ku dhufato wuxuu soo akhrinayaa dhammaan meesha tirada ku wada qoran. Kadibna waxaad leedahay enter
waxaad aragtaa wuxuu kuu soo saaraya totalka. Ama waxaad isticmaalaysaa adigoo wax qaacida aadan qorin ayaa waxaad qabanaysaa alt iyo calaamadda is equal ah, kadib waxaan leedahay enter. waxaad aragtaa isla natiijadii ii soo saaray. Ama waxaad isticmaali kartaa inaad dhahdo is equal sum, bracket aad furato, shift aad isla qabato iyo 9, kadibna halka xisaabtii ka bilaabato kasoo qabo oo soo jiid ilaa ay halkay ku dhammaato, kadibna waxaad leedahay enter. sidaas hadda waxaa ku samaysatay waxa loo yaqaano total ayaan ku samaystay. Total. Qoladan ka dambe sideen ku samaysan karaa marka? Qaacidadu ma aygana sidii ayaan u gelinayaa oo alt is equal miyaan leeyahay mise si kale ayaa jirta iga fudud. Waxaad ku samaynaysaa halkaas ayaad ka qabanaysaa geeska, kadibna waad ku jiidaysaa. wuxuu kuu soo saarayaa mid walba qaacidadiisa. inay saxan tahay in kalena waxaad ku ogaanaysaa qaacidada waxaad ku dhahaysaa tirada waxaad ku dhahaysaa double click. waxaad arkaysaa natiijadii ayaa ku soo baxaysa inta meel isku dardaray iyo ku calaamadeynaya. waxaan rabaa marka inaan sameeyo average. hadduu tiradani average-keedu waan sii sheegi karaa anoo aanan gelinin. waxaad aragtaa halkan hoose fiiri, average-keedu waa 74. ujeedaa average-keedu waa imisa? waa 74 oo 6 halkan marka inta lagu soo daro waxay noqonaysaa 75. countiga inta maaduu gal halkaasi waa 9 maado. sum isku darkeeda ama totalkeeda waxaa laga rabaa 672, waana tan oo ii qoran tahay. average sideen ku soo saaraya marka? waxaad qoraysaa is equal average. waxaad furaysaa bracket, waxaad leedahay totalka loo qeybiyey inta maaduu galay waa 9 maado loo qeybiyey 100 xabad. halkii maado waxaa lagu saxeeyaa 100. enter ayaan leeyahay. waxaa ii soo baxday isla tiradii oo ah 0.74. sideen ugu dhigi karaa marka decimalkan ugu saari karaa? adigoo meeshaada joogtid ayaa waxaad aadaysaa qaybta numberska, ka dooranaysaa calaamadda percentage style-ka ah. click markaan ku siiyo maxaad aragtaa? waxay noqonaysaa 75. waayahay, halkaani ayaan ku dhufanayaa iyadana oo double click ayaan ku siinayaa oo dhammaan ayaa ii soo galayso oo iga shaqeynayaa si ayaa ii diyaarinaya. sideen kusoo saaraa marka maadada ugu badan oo ardaygaas keenay? hadda waxaad aragtaa maadooyinkani 2 maado inay 100 ay ku jirto sida Arabiga iyo Soomaaliga kale. waxaan Arabiga ka jirayaa marka 5 darajo oo waxaan ka dhigayaa 95. halkaani totalka hadda waxaad aragtaa inay tahay 672. waxaad arkaysaa marka ayadoo iska jaraysa oo waxaan leeyahay marka 95 maxaad aragtaa 667 ayay noqotay. average-kana wuxuu noqday 74. waxaan qorayaa marka is equal max, bracket furo, maadooyinkan dhan soo calaamayso, kadibna enter leh. maadada ugu badan oo ardaygaas keenay waa imisa? waa 100. halkaa hoose double click ku sii, dhammaantoodana 100 ayaa ugu jirta. waatana qofkan hadda 100 haddaan ka saaro oo 98 aan ka dhigo way isbedelaysaa oo 98 ayuu qaadanayaa. sidaas la mid haddana max sideen kusoo saaray, min sideen kusoo saaray, is equal min ayaad qoraysaa, bracket ayaad furanaysaa, kadibna waxaad kusoo jiidaysaa dhammaani intaad haysato. enter ayaa leedahay. maadada ugu yarna waa taasa, waa 41. kadibna halkaan imaana double click aan ku siinayaa. mid walba wuxuu ku soo saaray marka maadada ugu yar. qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay counting. countigu sidaad kusoo saarayso way fududahay. waa sida max iyo min ayaad kusoo saaraysaa oo waxaad leedahay is equal counting, bracket offer, kadibna maadada sadarka soo calaamaday, kadibna enter dhe. waxaad aragtaa 9 maado. ardayda dhan waxay wada galeen 9. halka arday ugu horeeya ayaan waxaan ka tirayaa 1 maado Englishka ah. enter markaan dhaho aan ka tiro fiir marka muxuu galay? 1 maado ayaa ka dhiman oo ah 8 maado ayuu galay. oo maadadiisa haddaan soo buuxiyo maxaa dhacayo? waxaa dhacayo inuu maadada soo buuxiyo. qaacidadu waxay noqonaysaa marka mid isla shaqeysa. waxaan u baahanahay marka qaybtaani inaan color aan ku shubto. color ayaan ku shubanayaa oo iska khafiif ah.
waxaan sii calaameysanayaa marka sadaradani oo waxaan rabaa inaan u isticmaalo conditional formatting ah oo waxaan dhahayaa qofkii ka yar 60 maadadii 60 ka yar iyo calaamadeyn. markaasaa u calaameysato waxaad ku dhufanaysaa conditional formatting. waxaa jirta marka highlight cells rules markaad ka doorato waxaa kuu soo baxay marka greater than oo ah ka weyn iyo less than ka yar. aniga hadda marka waxaan rabaa marka less than ayaa waxaan ku siinayaa marka click. less than markaa click ku siiyo wuxuu ii doorayaa 70. ma rabo aniga waxaan rabaa 60 wixii ka yar. meesha hadda wuxuu ii siinayaa marka calaamado aad sidaad u jeedid anigoo aan okay dhihin oo ii calaamadeyn. haddaad rabto marka red light-kaasi oo khafiifka ah inaad iska bedesho halkaasaad ku dhufanaysaa oo waxaad dhihi kartaa markaasi red text numberka ayuu kuu calaamadeynaa oo keliya laakiin waxba ma kuu saarayo. sidaas la mid ah haddaad rabto marka red border ayaa ka dhigan kartaa meesha ku jiro goodkaas oo dhan seelkaas oo dhan inuu kuu gaduudiyo. haddana sidaas la mid ah waxaad ka dooran kartaa markaasi green cagaar inaad ka dhigato. cagaar looma isticmaalo markaasi wixii ka yar waxaa loo isticmaalayaa markaasi wax la yiraahdo gaduud. kadibna waxaad ila qurxoon aniga marka inaan isticmaalo red borderka wakaa. kadibna waxaan leeyahay markaasi enter. maxaa aragtaa hadda meel walbo 50 ka yar aan 60 ka yar wuxuu ii siiyey calaamad gaduud ah. haddana ku noqda marka waxaan rabaa wixii 70 ka badan aan 60 less than ayaan ku laabanayaa sidan ay ka qurxan aan ka dhiganayaa. hadda marka waxaan rabaa marka greater than ayaan dooranayaa oo waxaan leeyahay marka 70 wixii ka weyn ma rabo aniga. waxaan leeyahay marka 60 wixii xagga ka jira waxaad ii siisaa green cagaar ka ayaan leeyahay. hadda qaacidada marka waa lagu kala baxay. qaybna waa guduud ayaa saaran nambarka maadadu ardaygu ku yaryahay maadadu ku badan yahay waxaa saaran wax la yiraahdo cagaar. taasi waxaa loo yaqaanaa markaasi conditional formatting oo ah in maadada ardayga markaas inaad u kala saarto hadduu ku yaryahay iyo hadduu ku weyn yahay maadada ama hadduu wax fiican uu ka haysto iyo hadduu ku liito ama hadduu ku badan yahay. haddana sidaas la mid ah waxaan tagayaa marka qaybtaani. marka koowaad waa inaan select gareeyaa kadib halkaan aan tagaa kadib aan ka doorataa marka koowaad select garey saad haddaad rabto inaad kala saarto. waxaan rabaa ardaygii 9 maada ka yar galay inaa meesha guduud ay noqoto. markaad select gareyso conditional ka dooro highlight less than markaad dhahdo meeshaas waxaad gelisaa markaasi 8 oo kaliya geli. halkaan marka waxaa ka dooranaysaa marka red light-ka oo ah marka 8.5 ayuu ii ogolaanayaa bountiga marka waxuu ku kala saaranayaa. kadibna okay ayaa leeyahay. hadda maxaa aragtaa gaduud ayuu saaray. sidaas la mid haddana maadadan ayaa ka tirayaa waa kaa. marka mid walba haddii aad marka maada aad ka tirto sidaas ay isku bedelaysaa qaacidadu. laakiin haddii maadadiisa aad u buuxiso waxay noqonaysaa marka mid ka baxday oo cagaar ah oo sida kalarka adigu si sax u qaadanaya. fadlan haddaad ku xisabtahay kanaalka subscribe saar una share gari asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan.